بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. waxaan wax yar wax ka sheegayaa in sha allahu tacaala mowduuca ah fi listijaabati lilahi walirasuulih, in ilaahay subxaanahu watacaala la ajiibo, rasuulkiisana sidoo kale la ajiibo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dadka mu'miniinta ah: yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha warasuulah walaa tawallow canhu waantum tasmacuun. kuwii iimaanka laga helayow oo xaqa rumeeyeyow oo ilaahay subxaanahu watacaala rumeeyeyow iyo rasuulkiisa, ilaahay subxaanahu watacaala adeeca, rasuulkiisana sidoo kale adeeca. walaa tawallow canhu waantum tasmacuun. rasuulkana ka jiisanina idinkoo maqlaya. marka waxaa la rabaa dadka mu'miniinta ah in ay ilaahi subxaanahu watacaala adeecaan, rasuulkiisana sidoo kale ay adeecaan, rasuulkana aysan ka jiisanin iyagoo maqlaya. meel rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam looga waramayo ama nebiga wuxuu yidhi laga dhahayo in laga jeesto ma ahan. aayadda ku xigta ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: walaa takunuu kaaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun. ha noqonina oo ha ahaanina sidii kuwii yidhaahday waan maqalnay iyagoo aan maqlin bay waxay yidhahdeen waan maqalnay. kuwaana waxaa weeye waa munaafiqiintii weeye iyo yahuudda. kuwaas oo kale markaa ha ka mid noqonin buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala. sidoo kale ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: ina shara addawaabi cinda allahi summu lbukmu aladiina laa yacqiluun. inta dhulka ku socota waxaa ugu shar badan ilaahi subxaanahu watacaala agtiisa kuwa dhagaha la oo afkana la. kuwa iyaga ah ayaa ugu shar badan ilaahi subxaanahu watacaala agtiisa. kuwa iyagana waxaa weeye aladiina laa yacqiluun, waa kuwa aan caqliga lahayn. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucriduun. haddii uu ilaahi subxaanahu watacaala ku ogaan lahaa dhexdooda munaafiqiinta iyo yuhuudda wax khayr ah, haddii uu ku ogaan lahaa la asmacahum, xaq ayuu maqashiin lahaa. walow asmacahum latawallow wahum mucriduun. haddii uu xaqa maqashiin lahaana way ka jeesan lahaayeen, iyagoo marka horeba ahaa kuwa xaqa ka jeestay. haddii si kasta wax loogu sheego xataa waxaa weeye ma aysan maqli lahayn, sababtoo ah khayr laabayaal weeye. wax khayra ilaahi subxaanahu watacaala kuma uusan ogeyn dhexdooda. sidaa daraaddeed xaqi buunan maqashiinin. marka ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. kuwa iimaanka laga helayow, ilaahi subxaanahu watacaala ajiiba, rasuulkana sidoo kale ajiiba. idaa dacaakum limaa yuxyiikum, markuu uu idinku yeero rasuulka limaa yuxyiikum
wax yacni idinka idin nooleynayo. mufasiriinta qaar baa waxay ku fasireen limaa yuxyiikum waxaa laga wadaa huwa alqur'aan, qur-aanka ayaa laga wadaa bay dhaheen. mufasiriinta qaarna waxay ku fasireen huwa alislaam, in laga wado islaamnimada. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. waxaad ogaataan ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu kala teedayo, uu kala dhexgelayo bayna almari wa qalbih, qofka iyo qalbigiisa. wa annahu ilayhi tuxsharuun, isaga xaggiisa ayaana laydin shirinayaa. marka qof kasta waxaa weeyaan oo hadla waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ka warhayaa. aayaadkan kan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amray in isaga la adeeco, rasuulkiisana sidoo kale la adeeco. markii yacni la maqlo awaamirtooda, waxyaabihii yacni ay amreen ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa, waxyaabihii ay amreen markii la maqlo waxaa la rabaa in la ajiibo, laguna dhaqmo. waxyaabihii ay reebeenna ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa waxyaabihii ay reebeenna in laga haro oo aan la sameynin. maxaa yeelay gaaladu waa ay diideen in ay yacni dhegaystaan hadalka ilaahay, inay dhegaystaan sida uu ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegayba. waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aan walqow fiihi lacallakum taglibuun. kuwii waxay yidhaahdeen gaaloobay, laa tasmacuu lihada alqur'aan, qur-aanka kan ha dhegaysanina, walqow fiihi ku buuqa, lacallakum waxaad mudan tihiin inaad yacni ka guulaysataan oo aad ka adkaataan. waxaa weeyaan qur-aanka ha dhegaysanina, waa gaaladii, waa dhaqankii gaalada wey. yahuudda waxay yidhaahdeen waan maqalnay waana ku caasinay, qaaluu samicnaa wa casaynaa. munaafiqiintana waxay yidhaahdeen samicnaa wahum laa yasmacuun, waa maqalnay bay yidhahdeen iyagoo aan maqlin. marka waxaa la rabaa aayaadkan aan soo sheegnay waxyaabihii ayna amrayaan in yacni aynu sameyno, waa in aynu sameynaa. waxyaabihii ay naga reebeenna waa in aynu ka harno. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa videogan. qofkii daawada ama dhegeysta, fadlan subscribe iyo like ha saaro. oo walaalkiin macalin abubakar ama xaaji, dad baa xaaji i yaqaana, dadna macalin abubakar bay i yaqaanaan. dadkii hore baa xaaji i garanaya, reer tayeg calisoo dadka jooga waa waxay i yaqaaniin xaaji. magaca xaajina macalinkayga ayaa ii bixiyey. marka waxaa weeye magacaas haddaa aragtaan hala yaabina, dad baan igu aqoonin, igu garanayn xaaji. marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.